tuuga oo dad ku dhow 1 milyan oo qof ka dishay qowmiyadda aan ka soo jeeda ee Tuutsiga. waxaan qaatay go'aan aad u dhib badnaa oo haddii aanan qaadan lahayn maanta Rwanda aanay halkan joogteen inaan qanciyo qabiilkayga oo caro iyo ciil gaamuray qaba way adkayd inaan raalli ka noqdo inay aargutaanna way adkayd. waxaan ku idhi haddii aad aargudataan oo intii la idinka dilay dishaan guul gaari maysaan oo idinna berrito ayaa la idin laynayaa. haddii aad samirtaanna Rwanda waxay noqon doontaa dal dawlad leh oo dadkiisu iscafiyey. taariikh bay idiin noqon doontaa ee taladeeda maqla oo hubka dhiga oo dib u heshiisiin aynu dadka ugu yeero. ma ahayn go'aan sahlan in jabhad 10 sano soo dagaalamaysay oo awood qabiil iyo mid dawladeed loo sheegtay oo maatidoodii si safmar ah loo xasuuqay oo si sahal ah inay go'aankaasi ila qaataan, laakiin waxay ku qanceen inaan cidna dagaal guul ku gaari karin sideedaba. dhabtii waxay ahayd daqiiqado iyo saacado qaraar badan oo kala go'aaminaysa in Rwanda ku sii socoto dhabbihii daadinta dhiigga iyo gumaadka shacabka ama iscafinta tanaasul. waana go'aan sabab u noqday in maanta dadka reer Rwanda iscafiyaan oo yeeshaan qaran adduunka sumcad ku leh. jadwalkaygii nolosha iyo xilligii adkaayaan u soo shaqeeyey Rwanda wuxuu ahaa sidan: 2 saac waxbaan akhrin jiray sida buugaagta ay qoreen hogaamiyaashii caalamka ee guulaystay iyo macluumaadka ku jira. 2 saac qoyskayga ayaan la qaadan jiray. 4 saac waan seexan jiray. 16 saacadood dalkayga hooyo ayaan u shaqayn jiray. wakhtigaygana kuma lumin jirin inaan madax shisheeye la kulmo iyo inaan safaro badan dibadda u aado oo aan ku soo dhammeeyo. wakhtiga ugu badan waxaan gelin jiray sidii aan dalkayga uga saari lahaa colaaddii sokeeye iyo kala qaybsanaantii ka jirtay Rwanda oo markaas xanuun weyn ugu haysay. waxaa igu adkaatay sidii aan u soo dhisi lahaa ciidan qaran oo dalka Rwanda oo dhan ka dhaxeeya. taliyihii aan magacaabo qabiilkiisa iyo jabhadihii dalka ka jiray buu ka soo buuxiyaa ciidanka. intaa kadib waxaan go'aan ku gaaray inaan anigu gacantayda ku qoro ciidanka oo dhan oo aan qabto shaqadii taliyaasha iyo taliyaha guud. waxaan sidaa u yeelay inaan u helo ciidan qaran oo Rwanda matala. waan daryeelay. waxaan tusay waddaniyadda iyo in Rwanda oo qaran ah ay ciidan u noqonayaan. falsafadaas ayay ku dhismeen ciidanka reer Rwanda ee maanta ka mid ah kuwa Afrika ugu sumcadda badan. sannado badan oo aan qowmiyado u kala qaybsanayn, waddamo darisa iyo kuwo shisheeye oo ayna kala taageeri jireen, waxaannu ogaanay in aanayna heshiisiin karin ilaa aan annagu heshiinno oo ogaanno in annagoo reer Rwanda oo Rwanda wada leh aan noqon karro qaran la mid ah kuwana heshiisiin jiray. dadka ayaa iscafiyey oo gartay nabadda iyo dawladnimada sharafteeda. waxaan xoogga saaray waxbarashada, inaan samayno wax soo saarka beeraha, inaan ka maaranno ku tiirsanaanta deeqo waddamo shisheeye. intaa kadib markaan samaynay Rwanda maanta waxay ku faanaysaa inay ka mid tahay waddamada qaaradda Afrika ugu horumarsan ee caasimadeeda Kigali ay tahay tan Afrika ugu quruxda iyo nadaafadda badan. dhaqaalaha waddankeena Rwandana sanad kasta waxa uu kordhaa 8%. sidoo kalena waxa aan ka mid nahay waddamada Afrika ugu ammaanka iyo xasiloonida bilicda iyo barwaaqada badan. Soomaaliya, Rwanda 2 sannadood ayay xorriyadda kaga horraysay. wax ka yar 4 sannadoodna ayay burburka kaga horraysay. laakiin farqiga u dhaxeeya waa hoggaanka iyo shacabka. I think the amount of work we have done to change things, change the mentality, to change the thinking of people. And the very lessons brought by the suffering and all the horrific things that happened to us in the genocide, I don't think there would be any grounds for the